Soweto wali warar wanaagsan lagama soo tabinayo waxaa la sheegayaa saaka mar kale in booliska iyo immigration-ka iyo waaxda caafimaadka isla socdo ay u daateen isla markaana maxaan ku raahdaa dukaanadii baaritaan lagu kacay mar kale ayagoo xiran isla markaana kuwa furan xitaa ayaguna ay kamid ahaayeen si loo baaro waxyaabaha ay qabanayaan badqabka alaabta ay kadaan iyo weliba dadka meesha ka shaqeeya inay sharciyo haystaan in kala dad ayaa meeshaas lagu xiray sida warbaahintu ay tabinayso. Now, 3 undocumented foreign nationals were arrested today during a National Consumer Commission crackdown on non-compliant spaza shops in Soweto. The operation, which forms part of a wider national blitz, was prompted by the tragic deaths of 6 children who allegedly consuming contaminated snacks purchased from one of the spaza shops last week. The 6th child, who was fighting for his life in hospital, unfortunately passed away yesterday. Veronica Makwadi has more on that story. waxaa la soo warinayaa in ay dadka sharciyada aad u weydiinayeen dukaamadan ay mid u galayeen isla markaana maxaan ku raahdaa ay dadka alaabaha mid u soo bixinayeen fridge-ka kuwa ku jira kuwa shelfiska saaran iyo kuwa kale waxa aan dheed kale hayn qaadayeen waxa maxaan ku raahdaa dheedkooda dhacsan yahay waxyaabahaas oo dhamay aad ula socdeen marka dhaqdhaqaaqaas aad ay uga socday maanta meeshaas sida warkaysu sheegayaan. Expired goods, false labeling and packaging, manipulated or missing expiry dates, tampered food items, and significant structural issues like gaping holes in the ceiling are just some of the alarming health and safety violations that were uncovered during an inspection of spaza shops in Naledi. During this inspection, we have found multiples of items which were found very much non-compliant. For example, this Inkomazi, I don't know if it's an Inkomazi word, but you can see it doesn't even have a shelf date. So a person or a consumer can't even detail or understand how long should they keep this product for in their. alaaba badan oo dhacsan ay soo bandhigeen isla markaana warbaahinta ay la wadaageen dukaamada qaar laga soo bixinayo alaab jeexan alaab halaysan dadkaas inta badan waxyaabahaas inta badan ajaanibta ma tuuraan marmar waa iska koolayaan marka arrimahaas oo dhan ay soo bandhigeen warbaahinta ay la wadaageen dadka sharci la'aantana oo la xiray marka swiftigan iyo maxaan ku raahdaa iyo muujadahan horta waa South Africa ay ka bilaabatay marka kani waana in la jira quality. And some of the items here also, they have expired, others they have passed their date shelf life. So yeah, these are the most non-compliant goods that we found on the scene. At least 5 establishments were inspected during a joint operation by the National Consumer Commission, Home Affairs, Environmental Health Department and Police. 3 shop owners were arrested for violating the Immigration Act, while multiple fines and notices were issued for non-compliance. Among the violations was a spaza shop owner found living inside the shop, sharing the space with the products meant for the community. The state that we actually found the shops here, it's very devastating, and there is a great concern and a need for such interventions for us to actually go out to the public. waxyaabaha xusida badan waxaa kamid ah dukaamada ay baarayeen waxay ugu tageen dadka dukaamada ka shaqeynaya ama kuwa iska lahaa iyo alaabtii iyo maxaan ku raahdaa lacagtii iyo wixii isku wada dhex yaalo oo dadku inta badan dukaamada way dhex jiiftaan weelasha wax lagu cunayay stofka wax lagu karinayay taas ayaduna xasaasi ay ahayd oo xaqiiq ay ahayd waan la soo bandhigay marka barnaamijyadan inta badan maxaan ku raahdaa South Africaanku waayadanba waa ay baarayeen arrimahan inta badan dadka ajaanibta oo Soomaalida iyo Itoobiyaanka u badan ma haystaan maxaan ku raahdaa meel ay jiiftaan inta badan dukaamada ay dhex jiiftaan taasoo weliba sharciga Koonfur Afrika oo aad u diiday macnaha waxaan ku raahdaa waxaa kaloo isla socda la leeyahay waaxdii sharciga immigration-ka qolada caafimaadka iyo booliska ayaa wada socda sida warku sheegeen.